السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علماء وحي لورا الهواء هذا وحنسي حوجيني يا وننتي لا شيء وهرين نبي عليه الصلاة والسلام حتى الماما أبغض الناس إلى الله ثلاث إلهي دتك وقلنا عبي هاي دتك الصدح ويان وصدح الذنوب وين قال مركا قال لمدي وحلقة يماط أبغض الناس إلى الله ثلاث ككواد نبي وحكوت المامي ملحد في الحرم ما الذنوب تواوين كوكلية حرم كقديس ذنبي قويني دي شنو ذنبي إن حرم كإلهي القصي السمايانا وذنبي لبعض كاسيو حكم دي هيبو نبي قولي صدح ذا إلهي ونعبيه وحكى له صدح ذا إلهي ونعبيه كم ذا أبو نبي المامي مبتغ في الإسلام السنة الجاهلية قف إسلامك لحديثة كربو wadadii jaahiliyada inuu wada dhaqamadii diinta ka soo horjeeday wali raba inuu islaamnimada si dhex wado waa muslim islaamnimadiisa uu haystaa laakiin haddana wixii jaahiliyadu ku dhaqmi jirto wali kuntiga ku sitaa oo wuxuu rabaa dhaqankaasi inuu socdo waxa aad moodaa inagu ka Soomaali ahaan dad muslimiin abcan jaddi ahayn انت التاريخ الصوماليات لقرنايو ضد صوماليات مسلم باي هاي صومالي الدين كلها يستمين المقام انت مسلم هذاني هدنا واحد شرار رقم دين تآد وقفق وينو لحودني وريره هنية قبائل كينية دت كينوها حرر رقم هذا سوحي كينيين إنه كمد نقولنا مركا كون ونبي الشيء يولي مبتغ في الإسلام السنة الجاهلية ضد السلام لماذا كل إحرادنا إياه وحي جاهلية ضايل هاي مسائل كانوا الشيخ والشيخ عبد الناصر مثلا مقهن يوحى قصابسا يا حيرار كانوا كدج السني دوا إسلام لماذا ينوح كلا نحوضنا markii la iswacdiyo waxa la isu sheegay waa jiraan hadda reer Soomaaliyeed oo cuqaashoodu inta shuru qabatay isu yimi marka masaladu taagantay haddaad tiraahdo sama lagu fulinaya waxa laga yaabaa inaad dadku aqbalin ama dad badani waxaan caadayno ahaan jirtay waa la wadaya ku yiraahdaan laakiin iyadoo balaba jirin bay shiriyeen reerkoodii way isugu yeedheen culamadoodii iyo waxgaradkoodii iyo waayeelkoodii way isu yeedheen war waxa diintu ma ogola maxaynu ka yeelaba la isweydiiyay maanta aan xeer ka dejisan daynu hore xeerar u soo lahayn de kuwa ragum ba soo qoray waxay doontaba ha noqotay qalad iyo sax waxay doontaba ha noqotay waxaynu maanta ka yeelaa waxay go'aansadeen wixii ilaahay inoo soo dejiyaan ka yeelo way ku dhaqeen reerkina wuu wada qaatay odayna kuma qasbin cidana kuma qasbin ee waa tala reer gaadhay oo intuu reer tashaday ay gaadheen inay qaataan wixii ilaahay u jiday la yiraahdaa agoonka yar Soomaali mesela dilku ma dhamaado sababuhu dhamaan way xeerka ma kamida inanka yar ee aabihii la dilay ama walaalkii la dilay ee odayaaltay fadhiistay yiraahdeen ninkii waa cafinay isagoo waxba la weydiinin ama la jajuubay ee markii la qaatayna la yiraahdo adiga laba halaad ba kugu soo hagaagay aabihii ma laba halaad buu kaga sabrayaday Soomaa uu sidayntu ama qaqaan gaadhayo ama mid cidla marayo uu ka helayo uu sugaya waxana aanad u dhamaan weyday iyo dilkan u dhamaan waayay wax weeyaan de qofka weynu jujubna qofna mayna sabirsiinin laba mid un bay ahayd inaynu qofka qisaas u ogolaano oo yiraahdo baahinkaas waa dilay ha loo dilo oo qisaas aqbalo iyo wuxuu ku sabray inaynu siino nidhaano war boqolka geela ka hayso waad iska baraariya cafi dadka oo marka uu arko nin aabihii calala qal hawaaye wax haysta laakiin gala reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha gala reerku qaybsaday isaga xoolo uma aha wuxuu ku sabraa marka meesha ma yaaliin
waxaan aanadu inooga dhammaan weydaan waxaan wax ka saaraya xeerkeennan xeerkan aynu ku dhaqmayna inuu yahay waxaan aanadu u dhammaan weyday qoysna u sabri waayey 40 sano ka hor mid la dilay uu leeyahay reer hebel baa dilay reerkeegii marka laba mushkilad taagano kii reerka ninka ka dilayna wuu dulmiyey tolkiisii magta ka qaatayna waa dulmiyeen labada qoloba waa ku dulmiyeen kii abaha dilayna ku dulmi wixii laga qaatay kuwii ku diidayna dayana ku dulmiya agoonkana laba jeer buu markaa dulmayay marna reerna abihii buu dilay reer xoolihiisii buu qaatay marka waa laba jeer oo dulmiya idan waa laga yaabaa dadkiina halka fadhiya iyadoo sida loo qaybsanayo inaydan ugu timaadeen oo inaydan xeerarkan idinku dejin laakiin rag baa tihiin xeerka waa la bedeli karaa reerkii xeerka lahaana waa loo talin karaa waana la shirin karaa diinna waa qaadan karaa maan arag anigu dad Soomaaliyeed oo meel isugu yimi oo wanaag ka shiray oo isku diiday maan arag dadku hadduu wanaag ku shirayo oo markuu shiro isugu yimaado laakiin iyadoo dhibtu taagantahay haddaad shiriso waa mushkilad iyadoo nabadu taagantahay roonta intaad shiriso inaad tiraahdo war waxaa berri maxaynu ka yeelnaa xeerkeennii hore kaasoo ahaa diintiina saasay sheegtay maxaynu ka yeelnaa inay isweydiisaan dadku uu qaadanaya kaasi waa qodobka hore uu tilmaamay sheekhu qodobka labaad ee uu sheekhu tilmaamay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira erayo Anas ibn Malik uu leeyahay khudbad kasta oo nabigu jeediyo uu jeedin jiray khudbad kasta oo nabi maxamed noo jeediyo buu yiri weeraha kama tagi jirin la amanata la iimana liman la amanata lah wala diina liman la ahda lah nabigu uu yiri markasta khudbadaynay wuxuu oran jiray iimaan ma laha cidii amaana lahayn diin ma laha cidii aan ballan lahayn ayuu nabigu ugu oran jiray buu leeyahay alayhi salaatu wasalaam amaanadu way kala weynti amaanada maamulka ugu weyn cibaadadeeduna waa amaano ilaahayna saaray oo laynaga rabo inaan gudano xoolaha bini'aadamku waa amaano laakiin maamulku nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة هذا أمانة لنطه قيامه هناك بالنبوي مرة سيدة إليه رسولك سيوسيو ضيع مساء إذا وسد الأمر إلى غير أهله ونوه تلمام أمانة واحد ضيعته مدان مضنين مرة هذا الله سيئة ضدك مدح الله قدوه ما أنت الصومالي يسي شوخ شيء يدكم بمدحوها haddaad adigu tuug soo saarto iyo mid wax boobaya aakhiraadna waa lagu qabsanayaa waayo adaa boobka ka markhaati aha adaa rabay in wax la boobo minaadaadba xoolahaagu u dhiibateen haddaad tidhi xoolaha ummadda ha loo dhiibo adigu maad u dhiibateen waxaaga ilmaadeer waatiin tol waatiin isku reer waatiin laakiin waxaaga umaad dhiibateen laakiin waxaad ogashay waxa ummadoo dhan in loo dhiibo dee waa laba tuug umaateen waa tuug iyo tuug kalkaal والله شقada waa wada wadeen weeyaan runta markaynu isu sheegno hadaynu inagu daacad ka nahay dadka samahiisana doonayno waa sameyn karaynaa waayo dadkeenu xilka keenna rag ordayo hunguri wada waa ku imanayaan waa hubaaltaas mid lacag sita waa ku imanaya mid orday waa ku imanaya laakiin aday ahayd intaad reerka eegtay inaad tidhaahdo warkaasa ugu daacadsan oo ilaahay dartii dadka u cadaalad samaynaya cadaaladdu wayna wada gaari lahayd marka caqal walba hadduu kaa keeni lahaa soomaaliya way kici lahayd waa kufte waa kici lahayd cadaalad baana ina deeqda kani wuxuu soo boobaadna wax ku tari maayaan laakiin innaga waxaa ammaan noqotay tuuganimada سادرادة دين ليراني كهبل والله لبس النضوط بده ماشي كشق يورر كينا قربو ودسة يعني يرر كينا جامعة ودرة وتوجو واحد كوا مانسة حتى اللي بدأ توجو تقفك عادي قال الحضارة كفي عن ويقفك عادي قال الحضارة حلقة بلد ويسوع على السوق إن ترى الريو يعفي بربا واحد لا ضاي طابطي 8 مليون وقفوا حوض هداد حدا آخرية كاسارية
10 milyan oo qof oo aqoon iyo mid jaban iyo mid indhala iyo mid baaba'san bale ilaa 10 milyan bay intii ka dhaxaysay 10 milyan wuxuu qofkii qaatay aakhira si uu badbaadaya yaa cafinaya adiga waxaan ku yeelo ama ka qaato waa ku soo badheeri kara wariyo iska ka cafi waa ku celin kara si uun baynu wada xaajoon karna laakiin 10 milyan oo qof wuxuu haday kugu tageen إلهنا وحوله ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة عدي وحضاه غلول قوة حلال ودلية هي عدة وحكا حضاه أما فيقية جهات كهذا أما مالك بيت المسلمين كهذا بوحد وراده ومن يغلل با إلهي عدي وحضاه يأتي بما غل يوم القيامة وهيدا أن توجد الددوينه توجد كله ويكجد السنتين وحيمانة يا وحي وحدا يسوي تورت كسيدة قيامة كنتم كسنة دتك وتاجي هاي بنك قيامة ليس حسابنا يو هذو أو حدا يدشوا أو كسارة يسوق قيلنا يا ولبا هيدا هذان حديثك وحشاق يا أو كيسوق عدله عباضية وهي دتك على ربعين لا تصيه يوم العرض عبتي سير مغط كيرو الحدا يسوق دش كسارة لو يمنيه 7 أرضين يضو دش كسارة وح علامة أبا هذين قف كستو توجا نوع عاسية قري يسوق تورت كوستيرو يماضو حنلاقي مركها ورسو مالي مدي بدنا رتعتي الأشياء والدنيا الله يوحك كتير مدي بدنا لكن طبعا عباد بينه لأنه فرسمين كرويني طبعا عباد بينه فرسمين كرويني بينه عبتها قبيلك قصاب سيسان هدي الوراوح صدر ميدو حبوبي كرينة بيشة جينيس هدي اللي نيرادا عدالة سماه طلقة إناد قرية قرد خبوه هيلسو وأنا كودا لغا صومرين محانا يا هيد إنه عدالة حقا قبلونا طلقة أنا إنادو عدالة سميسو ضدك كلام مسلم كان إنادو عدالة سميسو هدينو قبيالات حلو هلو أما مكتئد هالنقطة أما حيركيد هالنقطة أما سيو حقي بسنة هالنقطة أما عدالة رادين تيد هالنقطة هدينو حلو هلو سوالي حلوة وهلينا كلا بعدنا ومد وضيدي هورين تاسي حلو رادين يركو صابيري هو بالود بالودو dadkii hore way inaga waxyar way inaga adduun yaraayeen Soomaalida maanta joogta ka adduun badan Soomaalida hore odayaal waaweyn oo Soomaaliyeed baan xabsi bari ku wada jirnaa sheekeynay marka waxa ka sheekeynay magaalooyinku say ahaayeen iyagoo ciyaal yar ayn garow baa la karin jiray bay yiraahdeenoo fuudka garowga ka soo hadha ayaan weydiisan jirnay kuwa hudheelko fuudkaasay dooxa nagaga aasi jiray bay yiraahdeen fuudka xataa noo diidi jiray fuud garow ayay naf bidayeen Soomaalidu maanta ay xoolo badan tahay maanta maalay ka xoolo badan tahay ma jirto in kastoo problem haysto laakiin Soomaaliga hore cunada ceeb buu yaqaan cadquureedna gaajo ka doorbidi jiray isagoo baahanna wuu seexan jiray ninka waayeelka ama ninka waxgaradka ama qofka magaca leh isagoo waxba afka saarin cunaduna kuma badnayn oday Soomaaliyeed odayadii Soomaaliyeed ka tiri jiray waxa la sheegay oday baan ku idhaaday suuq galmaad iska deysay dadkaas ugu yiri hebel nin la yiraahdo oo reer hebel u ahaa odaygooda bisha Ramadaan buu ugu yiri bisha Ramadaan oo dhan laba wasaladood oo hilib iyo 8 koob oo suuq u cabi jiray buu yiri shanayta horena fuuqali jiray wasalad buu ka cuni jiray inta ku xigta koob suuq u cabi jiray ninkaas koob suuq u cunay intuu ka dhigtay iska seexanay aanu tan kala hay oo soomay waxaan uga dan leeyahay iyadoo baahidu taalo ay dadku asturnaayeen hadda bini'aadamkii baa wada baahi laga dhigay balwada inoogu darsamay balwadaas waxay keensatay qofku wuxuu haystaa inaanu ku filayn wax kastoo agtaada yaala inaanu ku filayn waxa laga yaabaa maanta lacagta moobilka aynu ku bixinaa inay reer masruufi jirtay 30 sano ka hor 40 sano ka hor lacagta maanta aynu moobilka ku isticmaalo kharashka moobilka aynu ku bixinaa inuu reer masruufi jiray dadku markuu wada baahi noqday isla markaana dhaqaale ku filan baahidan oo dhameeyaan u jirin
waxaa batay laaluushkii iyo musuqmaasuqii iyo wax isweydaarintii iyo ammaanad darradii iyo waxa kan waxaa inagu sii daray maanta khamri qaad xashiishad soomaaliya wax walba hadda waa cabtaa waagii hore soomaaliya in yarbaa waxaan cuni jirtay anigu waxaa soo gaadhay magaalooyinka waaweyn soomaaliyeed oo 3 laan loobar yimaadaan 3 laan loobar buuqaadka gobolka burco oo dhan soo gala ayuu ahaan jiray maantana wadada markaan maro dhowr iyo 10 gaadhi oo tareella ah bay dhaafo qaadsida waa 2-3 saacadood aan meesha sii socdo intii waaga intaanu bariyin martay iyo inta galka dambe maraysay waxa marka laga yimaado waxaana Soomaaliya cunaysaa meelibana meesha galbeed ka sii xigtay kaga sii badantay way soo dhaafto hadda magaalooyinka qaadcun yar baadiyaha xun kulli gobolada aan ka yimi baadiyaha ka liita magaalada dad badan oo waayeel oo waaweyn oo wax garad oo aan qaad cunayn baad arkaysaa magaalada waxa laga yaabaa dhalinyaradii jaamacaadka oo dhan oo intooda badan aan qaad cunayn baad arkaysaa laakiin baadiyaha 80 jirku uu qayala oo sigaarku cabaa dhalinyartoodina khamriga cabtaa geelasha khamri lagu hor cabaa geelasha Soomaaliyeed baa khamri lagu hor cabaa dhul badan oo Soomaaliya dhalinyarada kayd waxaan uga dalayaa markaa xumihii wuu soo kordhaya iyadoo baahidii sii badanaysa haddana xumihiina soo kordhaya balwadu hadday meesha timaado controlku wuu lumaya markaa dad wax booba iyo dad wax hada iyo dad wax dhacay way qofkii balwada ka dambaysa balwadahana dadkii idinka u madax ah sidii loola dagaalami lahaa ee loo joojin lahaa ama loo yarayn lahaa horta de waxa qodhay lagu joojin karaa waa diin dadka haday diini gashana wuu joojin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam askar ma qoranin xabsiyo ma samaysanin waxba ma samaysanin carab oo khamri ka dharagtana wuu yimi 15 sanadood ee horena way cabayeen islaam laaha 15 sanadood oo islaam leeyay oo la tukanayo oo la soobayo hadana cibaadaadka labada hadana khamriga la cabayay waan la joojinin laakiin mar qura la yiri ka fogaado iska daaya dabeetana eraygaas ku filaaday askarna looguma yeedhin cidna looguma yeedhin dadka hadaynu diin geelino oo wax barro oo iimaankooda xoojino balwadan waynu celin karaynaa waa celin karaynaa hadaynu dawladda ku taageero waa yarayn karaynaa qaanuunku uu yarayn karaa oo ma joojin karo waayo waxay yiraahdaan shay market leh inta shay suuq haysta inta suuqu jiro cid keenta la waayay maayo daan maanta labada ugu waaweyn keena ama saddexda ugu waaweyn magaaladiina jooga hada isugu nimaadno waayeliyo aynu wacdino ay yiraahdaan waa ka baxnay saddex kale ma keenaysaa way suuqii baa jira meeshu waa inuu suuqu go'aa oo kan hadii iska daayo ku dambe xataa haduu keeno waa inaan suuq jiraynin sidoo ku joogsan kara waa sidaa waa inaan suuqu jiraynin ma aha qof iyo laba iyo saddex dan oo qura waa inaan suuq dadkii ahaa customerska zabuunka dadkan gadanaya waa inay joojiyaan markaas suuqu engegaya dadkana waxay ku joojin karaan de hadii wacdi iyo diin iyo tala iyo aqli iyo wax ku kordhino hadii uu u muuqdo inuu ceeb yahay حتى وحيابان كيابه waxa kamida galbeedka nimanka reer galbeed dadka droogooyinka isticmaala waa tabaqada hoose bulshada inteeda mudane haday droogada iyo waxaan isticmaashay way ceebowda marka waa inuu shaqado dhan ka tagaa waa ceebooba inaga imka wuxuu soo socdaa bulshada inta mudane inay cunto oo reerka hadii suldaanku qaylo ama madaxweynuhu qaylo ama sheekhu qaylo inta kale maxad ka sugaysaa marka yani dadka ama taajirka intii waxays intii dadku eeganayay haday iyadu qayisho war inta yaryar iska daaya de aqliga gali mayso waa in dadka inta mudane ay faraha ka qaadaa markaas inta yaryarna la sii wacdi karaa wixii hoos u sii dhaadhici karaa dad waaweyn mala tilmaamun baa ku filan hadal badani
waxba kordhin maayo dhowr culamaana waa ku hadalay waxaan ku soo koobayaa xil ballaadhan baa idin saarana ilaahay idin fudaydiyo dhibaha dadkeenna haystaana ma yaree ilaahay naga kor qaado laakiin dadkii wuxuun samayn kari lahaa ma dhibtaa yarayn kari lahaa waa innaga oo kaashana ilaahay sharcigiisa iyo dadkaynu u talino waa inu talada wax ka siino la wadaagno oo wanaagga ugu yeedhno way aqbali doonaan haddaynu inagu noqonno kuwa wanaagga horseedaya